السلام عليكم. برنامجka waxaa idinkugu soo gudbinayaa sida uu ugu fashilmay madaxweyne Farmaajo siyaasadda dalka Soomaaliya. Khudbadiisii doorashada ka hor ayaa siyaasaddiisa madmadow gelisay. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo. waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha sidaas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas. su'aalkii ugu horeeyay ayaa markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu ku tagay wadanka Saudi Arabia bishii 23keedii sanadkii 2017 isla maalin kadib su'aalkaasi uu Saudi ku tagay ayaa madaxweynuhu waxa uu safar ku tagay wadanka Kenya 28 bishii saddexaad isla sanadkaasi 2017 ayaa madaxweynuhu waxa uu tagay wadanka Jordan. jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku umada ka xiran yihiin dadkaad u baahnay ayaa maanta oo jimcaha laba qaybood u kala jaray wadooyinka Muqdisho iyadoo isgoysada dhowr ah lagu arkayay baabuurta dagaalka sida ay sheegayaan wararka ciidamada ayaa xiray dhammaan wadooyinka soo gala wadada Makka al-Mukarrama ee ka yimaada wadada wadnaha waxa xiran isgoysada Tarabuunka Banaadir KBB Bakaaraha Florence Howladaag ilaa Sinai oo ayna jirin wax gaadiid ah oo dhanka wadada Makka al-Mukarrama ka imaanaya iyo wax galaya ciidamada ku sugan wadooyinka ayaa aad u diidaya in gaadiidka ay u gudbaan waxayna gaadiidka kala wareegayaan meesha inta aysan gaarin inkastoo hore u xirnaayeen wadooyinka jidcadiyaasha ah ee dhanka wadnaha ka yimaada ayaa tan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ammaanka Muqdisho aad loo adkeeyay iyadoo maamul la soo dhaafay jireen qaraxyo isdaba joog ay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. siyaasaddu khiyaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo iskaba dhaaf madaxweyne miyaad hilmaamtay ballantii aad qaaday miyaad hilmaamtay ballantii aad ka qaaday walaasheen ballantii aad ka qaaday shacabka Soomaaliyeed ballantii aad ka qaaday ma aragtay ummadda Soomaaliyeed oo ku tiri faa'iid waxa weeye caafimaadkaada meesha ka helaysan ku garab istaagaya madaxweyne waad hilmaamtay waa ceeb weyn walaalayaalow mudanayaal marwooyin haddaad doorataan musuqmaasuqu waa targetkayga ugu horeeya weey waa la dagaalameynaa si forxunna waa la dagaalameynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummadana waa ku ceebeenaynaa xabsi dheerna u direynaa musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dawladda sidaasi waxa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dawladda Soomaaliya lacagta ka timid deeq bixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF iyo hay'ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision saddexdan hay'adood ayaa lacagtaasi ku shubayay account ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dawladda isla markaana aan lala socodsiinin hay'adaha maaliyadda dawladda Soomaaliya sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ay kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan maxay hay'adaha caalamiga ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyay dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah